haddaan ku baaqo dawladda ridada in la dilo meesha lagu arka laakiin laygama gudbinayo idaacadaha lagama soo daynaa waa layga jari doonaa marka enerjiga iga dhamayn warkaas in laga jaraya aaminsan waa ka jaraysiin ya dawladda ha la dilo madaxweynaha ha la dilo ra'iisul wasaaraha ha la dilo baarlamaanka ha la dilo wasaarada ha la dilo haddaan dhaho ha iga goynin alahaasaan ku baaqaa ummadda Soomaaliyeed anigu ma wada gaalaysiinayay laakiin dawladda maanta kaamirada iga duubayso Soomaali isku sheega waxaan qiraa inayna muslimiin ahayn laanno kitaabka Ilaahay kuma xukumaan qawaaniin iyo dastuur sharci dejiye gaalay kaamir qaataan inagu xukumaan sida daraadeed ma aamisni inay yihiin dad muslimiin ah Soomaaliya gaala joogto meeshan jooga maanta anigu godka jilci waa ilaahay anigu aqoon uma leh Ilaahay baa iga cilmi waa sida asxaabtiina qaar kamid ka xugmiya dadka jooga waxaan ka aaminsana gaala inay yihiin dawladda bisanba ula jeeda dawladdu inay gaala tahay iyo wixii hoostago la hal maal la shaqeeyo diin ya gaala waa lagu jihaada kufaarta wadan kasta ka timaado murtadiinta lagu jihaada calal uusta lagu jihaada mid kasta biista lagu jihaada saasa aaminsana aniga ka tirsaneed oo meeqa sana jeclaadide kooxda ma ahan adoo u shaqeynayso waxaad wacyigelin u sameynaysaa dhalinyarada da'da yar oo aad tashkiilinaysay ilaa imisa sanad ku goorma ku soo beertay su'aasha soo kala ka jawaabi karaa 7 sano ayaad hawsha ku dhacday maxaa qabanaysaa muddadaas diinaan baranayay dadna waa barayska ma badnayn intaan dadka bara laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala mararka uu karsiyo waa bari jira dadka diinta dilkaasi waxa soo dhan wada baabi'iyo maxaad markaa talaha wadanka u haysan ee ku barto maxaa ka aaminsantaa wadanka waxaan rabnaa kitaabka Ilaahay sunnada in lagu dhaqo hana lagu dhaqo daaqudka iyo dastuurka hana laga dhaafay qodobada degsan kitaab aan leenahay anagu ma nihin gaalo muslimiin baan nahay hana lagu xukumo kitaabkeena diin lagu xukumo waa ma tahay Ilaahay wuxuu faqtaluhu war madaxweyne farmaajo aan ugu xukumo door waxana la xukumo diin islaamka lagu xukumo hatta laakiin diin islaamka lagu xukumaynin أنا مبدئيا أنا كلامنا ديارمني بس هنا قطع الدين أمنا قواعس. سداس كذا دعسي هو يلمه دي مساكين مسلمين أنا ودم بك مجني فكر كي كان لقمة دبعته إلا كفار ما هن. أنا كبعض الصومالية مسلمة دينا أنا إسكاهم سنة هذا كلام كاهم سنة مرتب هيك دولة لا تاجر أو دولة ما ماركين دولة لا تاجر ماركين أنا. دولة الإسلام كان تاجيرة دين الإسلام ككتلس حكم الإسلام إيش اسمه الدولة ده سوحة دولة الفدرال كاليرة مقعه هو قديلي ها أمانة أسقنا أنها ويلي دولة الفدرال قيار اللي هذا اللي يقول شيء أنا والشاهد ميه واحد قيار اللي هو يا maxaan karba fasiradeeda inta arkaa way igu aad dawladda ridada daana aamisnayn ma fikir dagaal ma la igu soo qabtay dawladda ridada daana aamisnayn aqeedadeeda ya may iimaankaas wali ma helin ilaahay baan ka rajeynaa ilaahay inuu arsuqo laakiin waa ku tala jirtay inaad diyaariso maanta kale aad u haboon tahay halaa inaan isku qarxiyo waana haysan qaraxa maxaa markaa ku cadeynaysaa maxaa ku gaala nacayb baa iga batay gaalada aad u nacba iyo waxa la shaqeeyo oo kitaabka ilaahay ku xukuntamay dadka isku qarxinaysan ay wada gaaliyihiin yaa cadeen uga haysataa Ilaahay subhanahu wa ta'ala aayadkiisaan uga haystaa baan ku yiri kelimada la ilaaha illa allah macnaheeda ay baratidu dhaxgashay kitaabka tawxiid oo quraanka tafsiirkiisu waa wada tawxiid aad daalacatid waxaad ogaanaysaa xukunka oo leeyahay qofka muslimka naftiisa iyo nafta ka soo horjeedo waxa lid ugu waaqanaanu maxaa ku beenin kartaan marka waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannama aayada dhahaysa maxaad cadeena oo aad uga gambanaysaan uga leexan kartaan waxa uga gambanahay waxay tahay nin mu'mina ma badilaya baan ugu mu'miniin ma aan dawladda ridada